cali siciid fiqi oo ah danjiraha Soomaaliya ee u fadhiyo midowga Yurub oo wareysi siiyay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay rajo wanaagsan ka qabto ku guuleysiga kiiska dhinaca badda ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya sidoo kale safiirka ayaa hadalkiisa ku daray in Soomaaliya ay haysato qareeno waaweyn oo u dhashay dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska kuwaas oo uu sheegay inay qareeno ka noqdeen kiisas hore oo waaweyn. safiirka waxa uu sheegay in ay tagi doonaan bilaabashada maxkamadda madax ka tirsan dawladda Soomaaliya oo horkacayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed. marka anaga rajadeena aad u fiican tahay rajadeena waxyaabaha maaragtay ay ku fiican tahay waxa ku cad dhaqanka ay Kenya la timid oo ah in maaragtay ay doonayso khasab in maaragtay kiiska laga soo qaado maxkamadda ee banaanka maaragtay maxkamadda banaankeeda heshiis lagu wada galo dadaaladeeda iyo culeyskeeda sida ka warqabtiin maaragtay wuu nagu batay laakiin madaxda Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo wuxuu go'aan ku gaaray inuu arintaas maaragtay aan laga gorgortami karin in arinta maxkamad lagu dhameeyo waxaa kamid ah professor Dr. Paul Rashler waxaa ku jira professor Philip Sandis waxaa ku jira mataqaana nin Francis oo la dhaho Alain Pellet saddexdaas maaragtay shakhsiyaad oo midna Mareykan yahay midna Ingiriis yahay midna Faransiis yahay ayaa waagi tan iyo dawladii hore la qabtay ayaa wali garsoor noo ah iyaga dacwadii noo ah qareeno noo ah iyaga maaragtay wali dacwadii sii wadaan ilaa ay ka dhameeyaan wafdiga Soomaaliya waxaa hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Ahmed Khadar isaga hogaaminayo oo anigaan kamid ahay iyo dad xildhibaano kamid ah iyo shakhsiyaad Soomaaliyeed ayaa kamid ah wafdiga maaragtay dawladda 9 bisha September oo ah maalinta Isniinta ee soo socota ayaa waxaa dib u bilaaban doona dhageysiga dacwadda badda ee u dhaxeysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya taas oo dadka Soomaaliyeed ay rajo wanaagsan ka qabaan ku guuleysiga kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya.